السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركلة سود وده أدي هذا ومهسنتهين ما أنت والسبت لبيه طبعا كبيش أفراد سنة كلبضة كون يشاني لباتنك مقال كانوا حربائنا ندكول وداجو وزارة أمنية جودها مريكنكا أو إيميل أصود درتي قار كم ده دليردي سومالي ده هي ودن كشرع الدرادة كوسو جلي وحنا الله قبتي إن تضبط مع الموت أي ودن كوجب حانو اسم سافريان هديك له لما سافرين دونه arrintaasi ayaan rabaa inaan idinku la wadaago iyo arrin la yaab leh oo maamulka Trump uu sameeyo oo ah in qaar ka mid ah dadkii soo galootiga ahaa social security inta laga laabto lagu daro iyagoo nool qaybta dadka dhintay lagu daro social security marka haddii adigoo nool Mareykanka lagu diiwaan geliyo inaad dhimatay macnaheedu waxay tahay gudaha Mareykanka waxba kama qabsan kartid marka arrintaasina sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka Mareykanka sharci darrada ku soo galay ayaa email loo soo dirayay labadii maalmood ee la soo dhaafay emailkaasi waxa uu soo diraya wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka qoraalkan marka maxay ku leeyihiin dhalinyarada emailkan loo soo diray oo qaarkood ay la soo xiriireen emailkiina ay ila wadaageen ayaan rabaa inaan idin la wadaago emailkan waxa marka hore ku bilaabanayaa notice ama ogeysiin ah in termination of parole in laga laabtay parolekii la soo siiyay dadku markay xabsiga ka soo baxaan qaarkood waraaqa parole ah ayaa la soo siiyay oo cafis ah marka in laga laabtay parolekii marka waxa la leeyahay waxa la gaaray xilligii aad Mareykanka ka tagi lahaydeen waa qoraalka ku xiga waxa la leeyahay qoraalku uu ku bilaabanaya waxaad hadda Mareykanka ku joogteen wasaaradda amniga gudaha in ay parole idin soo siisay in aad Mareykanka xilli xadidan aad joogi kartaan iyadoo la eegayo qodobka 8aad ee dastuurka marka la eego faqradiisa 1282D 5A iyadoo sidoo kalena la eegayo 8 CFR 212 dhibic 5E marka wasaaradda amniga gudaha hadda waxa ay isticmaalaysaa awoodeeda ah in ay idinkala laabatay parolekii hore la idin soo siiyay marka waa dadkii waraaqaha paroleka la soo siiyay oo parole ahaan Mareykanka ku joogay marka sidaas darteed waxa ay wasaaradda amniga gudaha ay idinkala laabanaysaa parolekii sida ugu dhaqsiyaha badan ayuuna ku dhacaya marka parolekaada waa la terminate gareeyay muddo 7 maalmood gudahooda marka la terminate gareeyay ay ka bilaabato oo la joojiyay ama la kansalay mugeysiiskan marka uu ku soo gaaro 7 maalmood gudahood waa inaad wadanka Mareykanka uga baxdaa marka waxa sii raacsan hadii aadan ismasaafurin oo Mareykanka aadan si dhaqso ah aadan uga bixin waxa suuragal ah in ciidamada ammaanku ay qaadaan tilaabadaasi oo ah in wadanka laga saari doono Mareykanka removal gabi ahaanba laga masaafurin doono unless adiga hadii aadan sida sharciga aadna haysan waraaqa sharciya oo aad Mareykanka ku joogi karto marka wax kasta oo benefits ah oo dawladda aad ka helaysan Mareykanka waa sidoo kalena oo ku xirnaa arrinta parolekana sidoo kale waa laga joojinaya sida kaarkii shaqadana waa laga kansalaya marka hadii parolekii laga laabtay kaarkii shaqadana laga kansalay macnaheedu waxay tahay Mareykanka kama shaqaysan kartid Trump xilligii ololahana waa uu sheegay wuxuu yiri dadka kaararka shaqada la siiyo waan ka kansali doonaa marka sida kaarkii shaqada oo kale waa laga kansalaya sidoo kale waan terminate gareynayna waa kansalayna marka waxaad subject u tahay oo suuragal ah in dacwad ama dambi lagu soo oogo ganaaxna aad bixiso sidoo kalena penalty ama ganaaxida noocaasi oo kaleana wadooyinka sharciga ah iyo dawladda federaalku ay u mari doontaa marka wasaaradda amniga gudaha waxay leedahay waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad Mareykanka adigu iska si dhaqsiya aad uga baxdo waxaad isticmaali kartaa abkii aan hore idinku soo sheegay ee CBP Home Mobile-kaada soo degso isla markaana samee adigu qaabkii aad Mareykanka aad uga bixi lahayd hadii aadan Mareykanka ka bixin oo aadna dhul uga bixin sida dhulka ahaan aad uga bixin you should report your departure marka aad ka baxayso Mareykanka macnaha abkaasi waa inaad nagu soo wargelisaa in aad Mareykanka ka baxayso oo Mareykanka meel ka baxsan aad aadayso xitaa abkii waa kana sidoo kale waa la wadaagay sida aad aragtaan dadka qofku waa uu ku dhufanaya uu download gareysanaya halkaasi ayuu marka informationkiisa uu gelinaya waa voluntary reporting your departure si mutadawacnimo ayaa
ayaad noogu soo wargelinaysaa in aad Mareykanka ka baxayso marka haddii aad emailkan hesho waxaan kugula talin lahaa inaad wadanka isaga baxdo haddii kale gurigaada ayaa lagugu imaanaya waa lagu qabanaya kadibna waa lagu masaafurinaya dadka qaarkood emailkan haddii ay helaan Canada kale waa iska aadi karaan sidaan filayo kadibna mas'uuliyiinta Canada emailkan ayaa tusaysa in Mareykanku uu ku diiday uu yiri wadankeena nooga bax sidoo kalena again mar kale ayay ku celinayaan wasaaradda amniga gudaha waa ay terminate gareyso waa ay joojisay broolkaadii ha isku dayin marka in aad Mareykanka sii joogto dowladda federaalka way ku soo helaysaa marka fadlan isaga bax Mareykanka sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa lagu soo gabagabay marka waad arkaysaan emailkan dhalinyaro Soomaaliya ayaa loo diray iyagii ayaa ila soo wadaagay marka waxaa loogu baaqayaa in baroolkoodii ayaa la kansalay kaarkoodii shaqadana waa la kansalaya Mareykan kama shaqaysan kartid marka waa inaad isaga baxdaa waxay leeyihiin dowladdii hore ayaa baroolkan idin siisay annagiina waan idin kala laabanay marka waa inaad ismasaafuraysaan oo abka CBP home aad isticmaashaan wadan kale aad ka baxdaan marka wasaaradda amniga gudaha ayaa emailkan soo diraysa dad fara badan oo Soomaaliya ayaa loo soo diray ma ahan Soomaaliya oo kaliya in loo diray laakiin dad fara badan ayaa loo soo diray laakiin aniga Soomaalidii loo soo diray qaarkood ayaa ila wadaagay marka waxaan dhihi lahaa wadanka isaga baxa haddii aad arintan ay sidoo kalena emailkan aad heshay waa inaad wadanka isaga baxdaa ama abkaata isticmaashaa aniga waxaan aqrinayaa hadda dhalinyaro maxkamad ay reject siisay oo wadanka Canada aaday oo sharciga looga diiday Mareykanka qaar iskood isku masaafuriyena waa ay jiraan oo wadanka isaga baxay yar ayaa jiray ila soo xiriiray oo xitaa aan rabay inaan wareysi ka qaado laakiin aysan ii suura gelin oo bishii hore Mareykanka isaga baxay marka emailkan waa email hadda labadii maalmood u dambeysay dadka loo diray waa tahay arintaas haddii halkaas aan ka gudbo waxaa jirta sidoo kale in arin la yaab leh maamulka Trump uu sameeyo maamulka Trump ayaa hadda waxa uu qaaday tilaabo ah in dad nool oo soo galooti ah wadanka Mareykanka sharci darro ku joogay in social security code la kansalo isla markaana loo diiwaan geliyo dadkan inay yihiin dad dhintay marka social security administration-ka kuwa maamula social security ayaa waxa ay leeyihiin qaar ka mid ah soo galootiga social security kooda waa la kansalay waxaana lagu daray file kale yiraahdo death master file qofku markuu Mareykanka geeriyoodo filekiisa waxaa lagu daraa qaybta dadka dhintay marka waa ay adag tahay haddii aad gasho filekaasi oo aad noosho xitaa si qalad aad ku gasho waa ay adag tahay si mar kale lagaaga dhigo qof nool oo filekaasi lagaaga soo saaro waqti fara badan maxkamad fara badan ayay qaadanaysaa marka maamulka Trump wuxuu leeyahay waa diidan inay baxdaan Soomaan marka social security aad ku shaqaysanayeen waa la kansalay qaybta death master file ayaa lagu daray qofkan waaba geeriyooday ayaa Mareykanka looga diiwaan gelinaya ma shaqaysan kartid bank account ma furan kartid sidoo kalena lacagihii dawladdu ay ku siinaysay waa laga jaraya arintaasi ayaa hadda maamulka Trump uu ku dhaqaaqay waxaanu leeyahay waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad Mareykanka isaga baxdaan dadku waa ay diideen Soomaha inay ismasaafuriyaan hay waaba dhimateen ka waran Mareykan waxba kama qabsan kartid qof iska dhex joogo homeless ayaad noqonaysaa sidaasina talaabadaasi ayaa hadda uu maamulka Trump uu qaaday dadka u doodo xuquuqda dadka soo galootiga waxay leeyihiin arintan waa digital murder dadkii ayaa iyagoo nool qaab digital ah loo dilaya ay leeyihiin arintaasi waxa la leeyahay hadda maamulka Trump 6300 ayaa social security waxa ay ku dareen xogta daatada death master file yiraahdo oo dadka iyagoo nool geeriyooday ayaa lagu daray marka dadkii sida ku meel gaarka ah broolka loo soo siiyay ayaa waxa sidoo kale lagu daray in watch terrorist dadka argagixisay inay kamid yihiin ama FBI criminal records ayaa lagu daray marka dadka sidoo kale waxa la leeyahay in recordka social security ay sidaasi ay sameynayaan marka hadii lagu daro marka dadka shakhsiyaadka waxa la leeyahay oo social security administration-ka ay hadda ay ku dareen death master file-ka 6300 ay gaarayaan iyadoo sidoo kalena aan ognahay in xogta dadka dhintay in la keediyo ay bilaabatay 1899 ilaa 142 milyan oo qof ay ku jiraan xogtaasi death master file-ka oo ah in ay geeriyoodeen marka arintaasina waa ay jirtaa waa arin kale oo talaabo kale oo hadda maamulka Trump uu qaadayo oo dadkii iyagoo nool social security koodi inta la kansalo qaybta death master file-ka lagu darayo oo la leeyahay qofkan waa geeri marka bangi ma furan kartid dawladdu wax lacag kuma siinayso ma shaqaysan kartid talaabadaasina waa talaabo cusub oo hadda maamulka Trump uu bilaabay in uu qaado marka aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo